iyadoo tahay maalintii labaad ololaha xisbiga maxaafidka ee kulmiye loogu dabaaldegay musharaxa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa ayaa saaka aroortii hore waxa ku waabariistay suuqyada degmada Garadag heesaha sawaxanka iyo dhawaaqa iyo kumanaan qof oo ka mid ah taageerayaasha xisbiga kulmiye kuwaasoo gabi ahaanba kala xidhay isu socodka iyo wadooyinka magaalada waxaana qayb ka ahaa kooxaha Hindiya dhaqanka ee taageerayaasha xisbiga kulmiye ururada haweenka ururada dhalinyarada iyo mas'uuliyiin aad u tiro badan waxayna ku labisnaayeen calanka muuqa dheer ee astaanta oo xisbiga kulmiye iyo boodhar iyo halkudhigyo ay ku xardhan yihiin musharaxa jagada madaxweyne mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici dabaaldeg dheer kadib waxay isugu biyo shubteen geedka Samatalise nabadda halkaasoo dadweynaha reer Garadag ay ku soo dhaweeyaan hadba qofkay doonayaan inay u gaashaamaan hoggaanka dalka waxaana halkaas khudbada ay ku taageerayaan xisbiga ka soo jeediyay gudoomiyaha xisbiga maxaafidka ee kulmiye ee degmada Garadag Sahal Maxamed maayirka degmada Garadag mudane Faarax Aadan taageerayaal dhalinyaro gudoomiyaha garabka haweenka gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbigaasi iyo haldoor kale kuwaasoo gabi ahaantoodba ku dheeraaday taageerada iyo himilada ay u hayaan xisbiga kulmiye sidoo kalena waxay shaaciyeen waxqabadka uu la iman doono xisbigoodu hadduu ku guulaysto talada dalka taageerayaasha degmada Garadag inaan hal qof ka maqnayn oo degmada Garadag cid kasta way aragtaa cid kasta daawanaysana way aragtaa waa xafladeena markaa waxa weeye waa maalintii dabaaldega kulmiye noo qabtay ayaynu abaalgudkiisa laga ku muujinaynaa tartamaya barnaamij baynu ku tartamaynaa ay kuma tartamayno aflagaado kuma tartamayno waxa ay noo hal ku dhigay waa barnaamijka uu dhin walba soo bandhigo qoliyaha kale waxaan leeyahay annagu wax cad baanu haynaa aanu horena wageysanay gobolka iyo degmadaba iyaga waxaan leeyahay waa aragtaan Soomaaliland waa kulmiye yaani xaqiina ka ciir xaqa maamulkeena ka xumaan waa sida idinka sidaasana kula ballamaya waxaan fariin u dirayaa reer wadani baan fariin u dirayaa reer wadani waxaan u sii dirayaa in adeerkay xirsigaab oo xalayto afka kala waaxayay oo reer ceergaabo mulaha wadani meeday lacagti meeday wixii wada waa ku raacay adiga xisbiga ay taageersiin aad ugu maasayeen marka inaga nooma hadhin waxa weeye campaign iyo dowladuskeenu waxa weeye sida ayuu ku suurta galay oo uu ku galay ma garanaysaa kaaintooda horumarka ugu ballaaran ee deegaanka laga qabtay waad ogtihiin inta uu soo jiray jamhuuriyadda Soomaaliland ee dhulfalooda ku jiray ama horumarka la sameeyay horumarka ugu ballaaran waxa laga qabtay intii uu jiray xisbiga kulmiye uu ka dhacay dhamaanba deegaanada hoos yimaada degmada Garadag deegaanka Fadhigaab ayaa ka mid ahaa deegaanadii ay wacdaraha ku soo bandhigeen taageerayaasha xisbiga Balanjaleecno taageerayaasha xisbiga kulmiye ee reer Fadhigaab marka ka warrama Fadhigaab iyaga ismuujisay waa aragtaan waxba sidaa uga hooseeyaan waa kulmiye runtii maanta aniga farxad bay tahay maadaama aan nahay dadka qurba joogga waddanka ka maqan in aan la kulmo oo aan imaado Faraxa Cabdi Nuur telefishinka caalamiga ee Home Cable TV degmada Garadag
mid ahaa.